meelaan dawladda ka jirin oo system ka jirin oo kala dambeyn ka jirin oo amni ka jirin nolol ka suuragal ma dawladnimadu waxa la yiraahdaa waa waxa ugu weyn oo bini'aadamku ikhtiraacay waxyaha ugu weyn oo bini'aadamku ikhtiraacay waxa weeye dawladnimada waxaan teknolojiyada la sheegayo iyo diyaaradaha la kicinayo waxa ka muhiimsan oo ka miisaan weyn bini'aadamku inuu dawladnimo sameeyo oo ismaamulo laana wax kasto oo wanaagsan waxay ka dhashaan dawladnimada horumar kasto la arkaa wuxuu ku yimaadaa dawladnimada marka in dawladnimada muhiimadeeda iyo qiimaheeda laga faa'iideysto oo dhinaca dawladnimada loo dhaqaaqo oo qiimaha ku jira iyo waxtarka ku jira dawladnimada inuu ka faa'iideysano wax loo baahay tusaale siinaya magaalada Garowe la yiraahdo intaan Puntland la aasasay sidee ahayd degmada weyn baran la midaba يعني waxa ay wax ku noqdeen Puntland ama caasimad ha noqoto ama gobolka kale ha noqoto waxa wax ku noqotay xilligii dawladda Puntland la aasasay oo la keenay nidaam iyo system bini'aadamkuna kugu fahmi karo wax lagu qaban karo adna wax ku qabsan kartid bal sawir ka qaada hadaan Puntland jirin maanta goboladaas iska yihiin goboladoodii wax jira ma jireen ya marka waxa weeye waqti waliba dawladda Soomaaliyeed aan jirin oo burbur wadanka ka soconayay ayaa aqli wuxuu keenay waxa dawladda samaysto shaqa laga helay bini'aadam badan baa u shaqatay baarlamaan baa galay wasiiraa galay agaasimayaal waxa isma jireen markaynu qiyaasta ka qaadano Puntland sanaag waa la mid gobolkan markii dawladda ka dhaqaaqdo oo isbedelaya dhaqaalu yeelanaya shaqaale laga helaya waxba la qabsan karaya level kasta oo dawladnimada ka hirgasho inuu hadda federaalka ka tirsanahay laakiin Puntland iyadoo federaal ka tirsan bay misna iyadu lugaheeda ku socota waxa la rabaa sanaag iyadoo Puntland ka tirsan inay wax badan boqolkiiba 9 boqolkiiba 80 dareeheeda qabsan karto dhaqaale soo saarto cashuur la hesho bangigeeda iyo maxaan ku raadayay wasaaradda maaliyadda shaqeeyaan ay wixii ka soo baxay wax ku qabsan karto arinta dawladnimada markaa qiimahaas ay leedahay meelaan dawladda ka jirin oo system ka jirin oo kala dambeyn ka jirin oo amni ka jirin nolol ka suuragal ma inaan ka shaqeyno waa loo baahan yahay runta cilmi baaris iyo horumarinta hadaf